kadib dagaal aad u qaraar oo muddo 2 sano ay isaga hor yimaadeen dowladda federaalka Itoobiya iyo jamhadda Tigrayga ee TPLF ayna ku dhinteen in ka badan 200,000 oo kun oo qof ayna ku barakaceen 2 milyan oo qof ku dhawaad waxa ay dhinacyada is haystay Itoobiya heshiis ku gaareen magaalada Pretoria ee Koonfur Afrika 3 November sanadkii 2022 heshiiskaasi waxa uu dhabaha u xaarayay xabad joojinaya la soo afjira dagaalka sokeeye waqooyiga Itoobiya labadii sano ee uu dagaalkaasi socday dowladda Abiy Ahmed darbaaxa weyn ayay u geysatay awoodii kooxda TPLF oo 30 sano ka tirinaysay geeska Afrika waxaana qayb ka ahayd ololahaasi qayb ka noqotay Eritrea oo muddo dheer baadi goobaysay fursad ay uga argudan karto TPLF oo hore ugu diiday nacawda nabadda sababna u ahayd in la saaro cunaqabatayna daba dheeraaday asmara way ka faa'iidaysatay dagaalkii sokeeye Itoobiya iyo xiriirkii taariikhiga ee markii ugu horeysay sabab ay la yeesheen kadib markii Abiy Ahmed uu noqday ra'iisul wasaaraha Itoobiya si lama filaana uu la galay heshiis nabadgelyo dowladda Eritrea tan iyo curashadeediiba ay dagaal baan kala dhaxaysay Addis Ababa heshiiskaas oo dhacay sanadkii 2018 kadib bilooyin oo Abiy Ahmed ku fadhiyo kursiga Addis Ababa iyo ku mitaystay hanashada biladda Nobelka ee nabadda adduunka sanadkii 2019 asmara ayaa si aad u fulxun fursadaasi la aaminsan yahay in dhinaca Tigrayga ay qayb uga noqotay duulaankii November ee sanadkii 2020 dhinacyada ku dhex maray goob ku dhow magaalada Maqallo ahayd saldhigga ciidanka Itoobiya ee waqooyiga dalkaasi ma ogtahay in Dr. Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho asmara waxay heshiiskii ugu dambeeyay u aragtay ee Pretoria lagu gaaray mid dhabar jab ku ah ujeedooyinkii dagaal ee lahayd oo ay u horeysay in gabi hamba Itoobiyaanku ay helaan masaafo siman wixiligaasi ka dambeeyana waxa jiray khilaaf dheer oo u dhaxeeyay gudaha jamhadda garabka hubeysan ee TPLF hogaamiyaha jamhaddaasi ee xilligii hore Debretsion Gabriel Michel waxa uu khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo hogaamiyihii gobolka Tigray Getachew Reda Debretsion oo ah madaxweynihii hore ee maamulka isna kalsoonida dagaalyahanada Tigray ayaa ku eedeeyay Abiy Ahmed iyo Getachew Reda inaysan dhab ka ahayn fulinta qodobadii lagu heshiiyay ee Pretoria Reedana waxa uu ku eedeeyay abaabulka afgambi iyo adeegida kooxosheeye saaxiibadiisa siyaasadeed ee ay maalmaha khalaar soo wada mareen khilaafku wuxuu isku bedelay gacan ka hadal ugu dambeyn sababay in Abiy Ahmed uu Getachew Reda ka qaaday xilka uuna magacaabo General Tadesse Warade isbahaysiga Tigray iyo Eritrea inkastoo aysan jirin isbahaysi rasmi oo labada dhinac ay shaaciyeen haddana dowladda Itoobiya ayaa marar kala duwan ku eedeysay Eritrea inay gacan saar yeelatay jamhadda mucaaradka ee TPLF sida warbixino kala duwan lagu sheegay Masar oo ka faa'iideysanaysa colaadda sokeeye ee Kaalusan gudaha Itoobiya ayaa taageero hub iyo agabyo kala duwan u fidisay kooxaha ka soo horjeeda xukunka Abiy Ahmed iyadoo u sii maraysa dhanka Asmara dekadda casab ee Eritrea ayaa noqotay marinka ay jamhadaha Itoobiya ka dagaalamo kala soo degaan agabyadooda military diblomaasi oo ka soo wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu in masaaridu ay gadaal ka riixayaan xiisadaha colaadeed ee Kaalusan gudaha Itoobiya diblomaasiga magaciisa qariya ayaa wakaaladda u sheegay in Qaahira ay taageero u fidiso cid kasta oo cadow ku ah deganaanshaha iyo xasiloonida Itoobiya taasoo uu sheegay in masaaridu ay ujeedooyin fogfog ka leedahay badbaadinta Itoobiya damca qaawan ee badbaadinta uu muujiyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya tan iyo intuu kursiga yimid gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyay ayna u dheertahay asaasidda ciidan badeed oo Itoobiya leedahay waxa uu ku dhaliyay dowladaha dariska ee marinbiyoodyada leh xaalad feejignaan iyo shaki ay ka qabaan dowladda Itoobiya sida arrintaasi meel mar uga dhigayso Abiy ayaa madal kala duwan ka sheegay in Itoobiya ay xaq buuxa u leedahay helitaanka marinbiyood oo aan kira ku ahayn soo kalena aysan cid kale marti uga ahaanayn Abiy wuxuu sheegay in marka hore Itoobiya si nabdoon ku doonayaan marinbiyoodka balse haddii ay ka fursan waayaan ay adeegsan doonaan awood military asmara oo ah mid ka mid ah darisyada ugu dhow ee Addis Ababa lehna dekadaha badda cas ayaa ka mid ah dowladaha xiriirkooda u xumaaday sabab la xiriirta doonitaanka Itoobiya ee biyaha dhanaana waxaana sii xoojiyay xiriirka in madaxda Itoobiya si cad u sheegaan in 30 sano ka hor ay Itoobiyaan ku waayeen marinbiyood ay lahaayeen natiijaduna ahayd khalad istaraatijiyadeed iyo mid qaanuun oo ay galeen ayna waajib tahay hadda in dib loo saxo tan waxay ka dhigan tahay fariintoos oo Eritreanka loogu baaqayo in dekadaha ay haystaan ay u xisaabsan yihiin ummad kale suuragalna ay tahay inay ficil ku daraan damacooda
inkastoo ay caddaatay in Itoobiya dhanka Soomaaliya ka raadisay rumaynta riyadeeda badhelidda ayna January 2024 la gashay Somaliland heshiis afgarad oo Addis Ababa ay ku helisay marinbiyood ay si xor u adeegsato haddana feejignaantaas marna meesha kama bixin maadaama qorshaha Abiy Ahmed uu yahay ku qabsi ku qadimaysidee joogitaanka ciidanka Eritrea ee gudaha Itoobiya. Eritrea waxay u soo gurmatay xilliga Abiy Ahmed uu ku jiray dagaalka uu la galay TPLF waxayna gashay gudaha gobolka Tigray oo ay xad wadaag yihiin 2 sano kadib 2022 qodobadii ay ku heshiiyeen labada dhinac ee dawladda dhexe ee Itoobiya iyo TPLF waxa ka mid ah in si buuxda ciidamada sheeye uga baxaan gobolka Tigray asmara oo aragtay heshiiskan mid lagu qiyaamay soo koon looga abaaldhacay gurmadkii ay dawladda dhexe ee Itoobiya ku badbaadisay ayaan siinin wax qiimeyn qodobada lagu heshiiyay kuna adkaysatay inay ciidamadeedu sii joogaan gudaha gobolka Tigray oo muhiim u ah amniga qaranka ee Eritrea. maamulka ku meel gaarka ee hay'adda talada gobolka Tigray ee uu hogaamiyo General Tadesse Warde ayaa ku eedeeyay ciidanka Eritrea toddobaadkan inay ku sugan yihiin gudaha gobolka wuxuu ku tilmaamay faragelin qaawan oo ay dawladda Eritrea ku hayso madaxbannaanida dhuleed ee Itoobiya wuxuuna sheegay in la gaaray waqtigii ay ahayd in ciidanka Eritrea si xooga looga saaro gudaha Itoobiya. dhanka Eritrea way beenisay in ciidamadeedu u joogaan dhul Itoobiya leedahay balse waxay sheegtay inay ku sugan yihiin xuduudda dalkooda iyo deegaanada muhiimka u ah oo halka u joogaan inay sheeda ka ilaaliyaan amniga xuduudaha. asiyaasi afwarki madaxweynaha Eritrea oo maalmo ka hor wareysi bixiyay lana weydiiyay in ciidankiisu ay wali baaqi ku yihiin gudaha Itoobiya ayaa sheegay inay tahay war aan jirin soo kalena amarmarsiyo uu Abiy Ahmed ku doonayo weerar uu ku qaaday dalkiisa taasoo uu sheegay in Eritrea ay diyaar u tahay inay ka jawaabto. labada dhinac waxay u muuqdaan hadda inay si toos ah u aadeen jihada dagaalka. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ahna la taliyaha amniga qaranka ee Trump Mark Rubio ayaa toddobaadkan u sheegay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed in la gaaray waqti ay tahay dhinacyadu inay gabi ahaanba dhabaha wajahaan miiska wadaxaajoodyada tagaan lana soo gabagabeeyo xurgufta colaadeed oo abuuri karta in gobolka oo dhan uu aado marxalad aan deganaansho buuxa lagu haysana. Eritrea iyo Itoobiya awoodahan haddii ay si xoogan xilli u kala awood badnaayeen hadda taas way soo dhamaatay. Ethiopiana ma aha tii xilli la yaqaan laakiin waxa aan shaki lahayn colaad labada dhinac dhex marta si weyn gobolka oo dhan ugu riiqmi doono. khilaafka ka jira Ethiopia damacyada badan ee Abiy Ahmed qabo ee badda oo abuurtay cadaawad ay dariskiisu u qabaan iyo sidoo kale inay ka faa'iideystaan duruufaha colaadeed ee ka jira gudaha gurigiisa waxa laga cabsi qabaa inay noqoto volkaano ku qaraxday geeska Afrika oo ay ragaadiyeen colaado qarniyo jirsaday abaaro barakac iyo waliba sidoo kale xaaladda juqraafiyeed ee gobolka oo aan ahayn mid aan saldhigana. si gaar ah colaadda ka aloosan Ethiopia iyo Eritrea ayaa danqinaysa boogii hore ee u dhixeeyay shucuubta labada dal oo aan arag wax nabada ka hor heshiiska uu garwadeenka ka ahaa Abiy Ahmed sanadkii 2018. haddii aad ku nooshahay Amerika, Yurub, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya adeegga PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zad, Sahal iyo M-Pesa. ballanteenu waa PC.